tababarkan oo socday muddo 2 maalin ah ayaa ardayga lagu barayay sida uu ardaygu wax u qori karo iyo waliba sida uu wax u curin karo waxaana tababarkan soo qaban qaabiyay rugta qorayaasha Soomaaliyeed ee dalkan Uganda waxaana tababarkan ka dhacayay jaamacadda Victoria xiritaanka tababarkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfa iyo siyaasada safaaradda Soomaaliya Uganda mudane Cali Maxamed Maxamuud ورين قدوميها ركت قريش الصومالية دالكن واندا يوسف حسن أبقالو أياش الرحي وجدد توبركن انت أصلا مسؤول على الدنيا هنقدر رأينا أيام أن الصومالية قروح بدن الصومالية كتبوا ندي هرم سوتشتي بس الصومالية والوقت واحد قيم كأدولة هنا بحق واحد قيم كسفارات هنا وسفيركم منهم قاعدين والصومالية والوقت أنا قلنا لهم الدولة هذا أنا واحد قلت إن كان منهم ذلك الصوت عن oo maaragtay hore u socono marka waxaan rabnaa in studies-keena ay uruqaadka dalka maaragtay ay sii wado oo hore u sii wado yaa rabnaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan idiin sheego safiirku iyo safaaradda Soomaaliya markii ugu horeysay iyo dajabka Soomaaliya Writers waxaan wada qaban doonaa forum aan ku casuumay maaragtay honorable Sadiq Xirsi Warfa aan ku casuumay forumkaas oo ku doona Jimcaha dhanka kale siyaasada safaaradda Soomaaliya mudane Cali Maxamed Maxamuud Cagburur oo ka hadlay munaasabadda ayaa wasiirka ku soo dhaweeyay kulanka waan uga mahad celinaynaa wasiirka runtii isla markii aan u sheegay oo ku yiri wasiir waqtigaadi maanayso daqiiqada ama saacada ka bacdi ardada Soomaaliyeed programkaas u dhamaana waxaan jeclaan lahayn inaad ka soo qayb gasho runtii without hesitation waa aqbalay waxaan rajaynayaa dhamaantiin waabatiin inaa musaqafiin ahaataan dad badanna soo saartaan aad ku ekaanina kaliya academic sidoo kalena insha Allah warkeen uu noo dambeyn doonay dhalinyarada badan ee fadhi ku dirarka aan macnaha lahayn fadhiyana inaad si barnaamijyada noocaan u badisaan si uga faa'iidaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Warfa oo madasha ka hadlay ayaa rugta qorayaasha Soomaaliyeed ku booriyay in ay dalkeena ugu hiliyaan qalinka marka maskaxdan aad aan tashiilino aan ka shaqeyno wanaaga iyo mataqaasukeynada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeya midnimadiina halkan si midnimada xaq u xoogsato wadanka Soomaaliya wax walba u tiri kartiin u tara qalinka ugu hiiliya waa idin garab taaganahay insha Allah gabagabadii Xasan Cabdirasaaq oo xubin ka ah rugta qorayaasha Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedada ugu weyn ee tababarkan loo qabtay ardayda Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan oo train aan u furnay oo 2 cisho socday طبعا waxyaabaha aanu aad iyo aad ka focus ka saarnay waxa kamid ahaa in qofka Soomaaliyeed ama ardayga Soomaaliyeed uu barto sida wax loo qoro oo ku dhiirado qoraalka waa mid labaad waxyaabaha aanu aad iyo aad ka focus ka saarnay waxa kamid ah in qofku problemka uu mataqaana ama mushkiladaha Soomaaliya ama Afrika ba haysta uu qofku ku xalliyo qaab qoraaleed uu ku muujinayo qaab qoraala uu ku muujinayo si uu mataqaana ula wadaago ummadaha isaga oo qoraal iyo ku muujinaya xalkii iyo problemka sidoo haba ku muujinaya waxyaabaha aad ka focus ka saarnay waxa kamid ahaa in mataqaana ardaygu amba uu qofka Soomaaliyeed uu ku dhiirado si uu u abuuro sheekooyin si uu u abuuro mataqaana wax curin si uu u abuuro inuu wax hirgeliyo si uu u abuuro inuu wax meel mariyo si uu ugu muujiyo qoraal iyo akhri Yusuf Maxamed Macallim Iskashmiir raadiyo telefishinka Soomaaliyeed Kampala